20 Ramadaan waxay ku aadan tahay maalinkii uu Ilaahay ku karaameeyay rasuulka furashada Maka sanadii 8aad ee Hijriga. Qisada furasho Maka waxay soo bilaabatay dhamaadkii bisha Shawaal sanadii 6aad ee Hijriga, markuu Nabigu ku riyooday asaga iyo saxaabada oo soo cumreysteen. Kadib Nabigu wuxuu u sheegay saxaabada inay tinta xiran doonaan ayna soo cumreysan doonaan. Saxaabaduna way bishaareysteen, ilaan riyada ambiyada waa xaq. Kadib waxaa dhacay sulxul Xudaybiyah. Heshiiskaas markii laga soo tago Quraysh iyo Muslimiinta, waxaa kaloo ku jiray qabaa'ilo xulafo la kala ah labada dhinac. Waxaa ka mid ah Bani Bakar oo Quraysh xulafo la ahayd iyo Bani Khusaaca oo rasuulka xulafo la ahaa. 2 sano kadib sulxul Xudaybiyah, Bani Bakar iyo Quraysh oo garab u ahayd waxay ku duuleen Bani Khusaaca oo rasuulka xulafo la ahaa. Sidaasna Quraysh waxay ku jabisay heshiiskii. Amr ibn Salim oo ka mid ahaa Bani Khusaaca wuxuu ka soo tagay Maka wuxuuna yimid Madiina. Kadib wuxuu tiriyay gabaygiisii dheeraa. Kadibna Nabigu wuxuu ku dhahay, nusirta yaa Amr ibn Salim, waa lagu gargaaray Camrow. Kadib Nabigu wuxuu Quraysh u diray fariin inay bari ka noqdaan waxay Bani Bakar sameeyeen ayna iska bixiyaan diyada Bani Khusaaca. Laakiin Quraysh maysan u aabayeelin. Kadib Nabigu wuxuu isku diyaariyay furashada Maka, wuxuuna u sheegay saxaabada inay isku diyaariyaan. Sidoo kale wuxuu u dhawaaqay qabaa'ilada xulafada la ahayd. Nabiga Maka wuxuu kala soo baxay 12,000 oo ciidan ah oo hogaaminayay, waxayna soo baxeen 10 Ramadaan. Markay soo marayaan Juhfa, waxay iska hor yimaadeen Nabiga adeerkiis Al-Cabbaas bin Cabdilmuttalib iyo carruurtiisii oo Madiina u soo hijroodeen. Nabiga aad ayuu ugu farxay markuu arkay adeerkiis oo soo islaamay. Sidaasna Cabbaas wuxuu ku ahaa ruuxii u dambeeyay ee u soo hijrooday Madiina. Cabbaas markuu arkay ciidanka tirada badan wuxuu u cabsaday reer. Kadib rasuulka ayuu fasax weydiistay si uu Quraysh ugu digo. Wuxuu qaatay baqashii cadad ee rasuulka. Intuu sii socday waxaa ka hor imaaday Abu Sufyaan bin Harb oo la yaaban tirada ciidanka ku soo socda. Wuxuu weydiiyay, waxaasi Bani Khusaaca miya? Laakiin Bani Khusaaca intaas way ka yareed. Cabbaas wuxuu ugu jawaabay, maya, waa rasuulka, wuuna kugu yimid. Kadib Abu Sufyaan wuu naxay. Kadib Cabbaas wuxuu u soo jeediyay inay rasuulka ku laabtaan si uu u ammaan geliyo. Abu Sufyaan wuu ka yeelay, wayna soo raaceen. Markay soo gaareen ciidanka, waxaa ka hor imaaday Cumar bin Khattab radiyallahu anhu. Isla markiina wuxuu uga soo hormaray rasuulka, wuxuuna ka dalbaday inuu dilo Abu Sufyaan. Laakiin Cabbaas wuxuu dhahay, Abu Sufyaan maganteeda ayuu ku jiraa. Markuu Nabigu u soo galay kadib, sheeko dheer kadib Abu Sufyaan wuu islaamay. Kadib Cabbaas Nabigu wuxuu ku dhahay, Abu Sufyaan waa nin faanka jecel ee wax u sameey. Kadibna Nabigu wuxuu dhahay, qofkii galaa guriga Abu Sufyaan waa aamin, qofkii galaa masjidka xaraamka waa aamin, qofkii gurigiisa isku soo xirana waa aamin. Abu Sufyaan wuxuu u soo jeestay Maka si uu Quraysh ugu digo. Laakiin Nabiga wuxuu amray Cabbaas inuu Abu Sufyaan wadada taajiyo si uu u arko xoogga iyo awoodda muslimiinta. Kadib Abu Sufyaan markuu Maka yimid, wuxuu iskugu wacay Quraysh oo dhan, wuuna u khudbeeyay. Wuxuu ku dhahay, waxaa idin yimid Muxammad, mana ku aadiin. Waxay ku dhaheen, maxaan sameynaa? Kadib wuxuu ku dhahay, qofkii galaa guriga Abu Sufyaan waa aamin, qofkii masjidka xaraamka galaa waa aamin, qofkii gurigiisa isku soo xirana waa aamin. Kadib Quraysh oo dhan waxay isku soo xirtay guryahoodii. Sidaasna Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadu waxay ku soo galeen Maka ayagoo aaminiin ah. Kadib Nabiga wuxuu jajabiyay 360 sanam oo ku taalay Kacbada, wuxuuna dhahayay, waqul jaa al-xaq wa zahaqa al-baatil, ina al-baatila kaana zahuuqa.